waxaan jeclahay bartan inaan lacag deeqa guddoonsiye ciidanka oo dhaawaca ciidanka soo gaaray lagu dhayo ilaahayna waxaan ka baryayaa intaa ka badanba inaad dalkiina u qaban doontaan islaamnimo dabkii suuqa waahi dabkii suuqa waahi dalida bannaanka dhigay dadkii hantidooda iyo kuwaayay dunyadu xildhibaan waxaan kuu soo dhaweynaynaa taliska ciidanka dabdamiska qaranka haddii in yaroo kooban sharxaadan kaa siiyo ciidanka qaranku waa ciidan u takhasusa dhinaca dabdaminta iyo badbaadinta dadka iyo xoolahaba taariikhda kooban haddaan ku siiyo 2014 baanu bilaabanay 30 inan baan ku bilownay hargeysaan ku bilownay markii dambe waxay noqotay hargeysayada ballaadhato oo dhibaato ay noo noqoto inaan gaadhno degmooyinka marka iminka 3 degmo kale iyo xaruntan 4 baan hargeysa xarumad ka shaqeynaa gobolada markii aanu hargeysa ka adkaanay ayaa la yidhi gobolada haddaba weyn loo dhisaa gobolada oo dhan Somaliland waxaan ku leenahay xarumaan ku leenahay marka 30kii inamood imika 400 dheeraad bay marayaan halka waxaa jira intii hawlgal aanu galnay 2014 aan bilownay ilaa 2021 waxaanu galnay 5927 hawlgal baanu galnay haddii biyo noqoto 168,360 haddii noqoto saacado 2806 baanu ku shaqeynay haddii noqoto biyo 49,207 baanu galnay haddii noqoto hantida aanu badbaadinay 1,367,789 ayaan badbaadinay marka waxaan kusii tala jirnaa haddana in afarta degmo hargeysa inaan u sameyno xarumo haddii alla ka dhigo kolba sidii si wax loo helo haddii gobolada noqotona inaan kusii kordhino kani waa medicalkii oo waxaan leenahay dhakhaatiir gooni aan leenahay geerish gooni aan leenahay oo soo marmarsiin doono inta shaqo aanu dadka barno waxaan ma dabkoo kale aan barno intaasoo shaqo aanu barnaa armigi physical training IT training electric training laana meesha aanu galnoba de electric asu khatar oo biyaan ku baqtirina first yearkaasna waa aad buu muhiim u yahay waa daha halkana waa igelintii dadka marka xildhibaan aad iyo aad ku soo dhaweynaya sababta saaka bartan idinku yimid waxa weeyaan kow inaan idin dhiiri gelino inaan idin sheegno abaalka iyo ogaalka ummaddu idin hayso inaad hawl wanaagsan qabateen inaad hantidii hargeysa ku gubanaysay naftiina aad u hanayseen waxa dhaawac soo gaaray kolleyba ciidankaaga qaar ka mid ah ummadda dhibtu ku dhacdayna ilaahay wax ka dheef badan inuu ugu bedelo ee walaaladeenna ee hantidoodu baabaaday baan ilaahay iyagana uga baryaynaa anu waxaan ka fikiray hantida ololeysay qofka naftiisii ilaahay u haneeyey u hibeynaya dhimasho u bareeraya muxuu mudanya muxuu dadka ka mudanya runtii hanti waa la heli karayaa laakiin naf lama heli karayo wuxuu mudan yahay kow inuu hero yahay laba in abaalkaa loo hayo saddex in runtii mudnaan gaara la siiyo bulshada waxaan ka codsanayaa ciidanka dabdamiska markay arkaan inay sacab iyo dhoola cadeyn ku soo dhaweeyaan inay sixmadaha ka qabanaya miishanadooda ay dariiqada uga beydhaan
inaynu qof kastaba uu ku shafro ciwaanadiisa baraha bulshada dhiirigelin weyn ciidankeena inaynu u samayno. waxaan jeclahay bartan inaan lacag deeqa guddoonsiiye ciidanka oo dhaawaca ciidanka soo gaaray lagu dhayo. ilaahayna waxaan ka baryayaa intaa ka badanba inaydu dalkiina u qaban doontaan. ilaahay waxaan ka baryayaa dowladeenana inuu ilaahay noo barakeeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa dalkeena ilaahay inuu noo barakeeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa masiibada dhacday ciwad khayr qaba ilaahay inuu naga siiyo. ilaahayna waxaan ka baryayaa masiibo kale oo nagu soo socoto ilaahay inuu nagaga hayo. raxmadiisana ilaahay inuu noo shubo. cid kastana waxaan ugu baaqayaa dadkaa caydhoobay inay cuud iyo calaf waxay ku taageeri karayaan baa ku taageeraan. mar labaad iyo mar saddexaad ciidanka dabdamiska ilaahay cimrigooda ha barakeeyo, camalkoodana ilaahay ha barakeeyo. waxaan jeclahay bartan inaan lacag deeqa guddoonsiiye ciidanka oo dhaawaca ciidanka soo gaaray lagu dhayo. ilaahayna waxaan ka baryayaa intaa ka badanba inaydu dalkiina u qaban doontaan. dareen islaamnimo dabkii suuqa waahi dabkii suuqa waahi dalida bannaanka dhigay dadkii hantidooda iyo ku waayay dunyadu xildhibaan waxaan kuu soo dhaweynaynaa taliska ciidanka dabdamiska qaranka. haddii in yaroo kooban sharxaadan kaa siiyo, ciidanka qaranku waa ciidan u takhasusa dhinaca dabdaminta iyo badbaadinta dadka iyo xoolahaba. taariikhda kooban haddaan ku siiyo, 2014 baanu bilaabanay, 30 inan baan ku bilownay, hargeysaan ku bilownay. markii dambe waxay noqotay hargeysa inay ballaadhato oo dhibaato ay noo noqoto inaan gaadhno degmooyinka. marka iminka 3 degmo kale iyo xaruntan 4 baan hargeysa xarumad ka shaqeynaa. gobolada markii aanu hargeysa ka adkaanay ayaa la yidhi gobolada haddaba waa in loo dhisaa. gobolada oo dhan Somaliland waxaan ku leenahay xarumaan ku leenahay. marka 30kii inamood iminka 400 dheeraad bay marayaan. halkaa waxaa jira intii howlgal aanu galnay 2014 aan bilownay ilaa 2021 waxaanu galnay 5927 howlgal baanu galnay. haddii biyo noqoto 168,360 haddii noqoto saacado 2806 baanu ku shaqeynay. haddii noqoto biyo 49,207 baanu galnay. haddii noqoto hantida aanu badbaadinay 1,063,789 ayaan badbaadinay. marka waxaan kusii tala jirnaa haddana in afarta degmo hargeysa inaan u sameyno xarumo haddii alla ka dhigo kolba sidii si wax loo helo. haddii gobolada ay noqotona inaan kusii kordhino. kani waa medicalkii oo waxaan leenahay dhakhaatiir gooni aanu leenahay, geerish gooni aanu leenahay oo kusoo marmarsiin doono. inta shaqo aanu dadka barno waxaan lamada dabkoo kale aanu barno, intaasoo shaqo aanu barnaa. armigii physical trainingkii, IT trainingkii, electric trainingkii. leanna meesha aanu galnoba dee electrigaas waa khatar oo biyaan ku baktinina. ferserkaasna waa aada buu muhiim u yahay. waa halkana waa wacyigelintii dadka. marka xildhibaan aad iyo aad baan kusoo dhaweynayaa. sababtan saaka bartan idinku yimid waxa weeyaan kow inaan idin dhiirigelino, inaan idin sheegno abaalka iyo ogaalkii ummaddu idin hayso, inaad hawl wanaagsan qabateen, inaad hantidii hargeysa
ku gubanaysay naftiina aad u hanayseen waxa dhaawac soo gaadhay kolleyba ciidankaaga qaar ka mid ah ummadda dhibtu ku dhacdayna ilaahay wax ka dheef badan inuu ugu bedelo ee walaaladeenna ee hantidoodu baabaaday baan ilaahay iyagana uga baryaynaa anu waxaan ka fikiray hantida ololeysay qofka naftiisii ilaahay u haneeyey u hibeynaya dhimasho u bereeraya muxuu mudanya muxuu dadka ka mudanya runtii hanti waa la heli karayaa laakiin naf lama heli karayo wuxuu mudan yahay kow inuu hero yahay laba in abaalkaa loo hayo saddex in runtii mudnaan gaara la siiyo bulshada waxaan ka codsanayaa ciidanka dabdamiska markay arkaan inay sacab iyo dhoola cadeyn ku soo dhaweeyaan inay sixmadaha ka qabanaya miishanadooda ay dariiqada uga beydhaan inaynu qof kastaba uu ku shafro ciwaanadiisa baraha bulshada dhiirigelin weyn ciidankeenna inaynu u samayno waxaan jeclahay bartan inaan lacag deeqa guddoonsiiye ciidanka oo dhaawaca ciidanka soo gaadhay lagu dhayo ilaahayna waxaan ka baryayaa intaa ka badanba inaadu dalkiina u qaban doontaan ilaahay waxaan ka baryayaa dowladeennana inuu ilaahay noo barakeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa dalkeenna ilaahay inuu noo barakeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa masiibada dhacday ciwad khayr qaba ilaahay inuu naga siiyo ilaahayna waxaan ka baryayaa masiibo kale oo nagu soo socoto ilaahay inuu nagaga hayo raxmadiisana ilaahay inuu noo shubo cid kastana waxaan ugu baaqayaa dadkaa caydhoobay inay cuud iyo calaf waxay ku taageeri karayaan baa ku taageeraan mar labaad iyo mar saddexaad ciidanka dabdamiska ilaahay cimrigooda ha barakeeyo camalkoodana ilaahay